maanta waa maalin Premier League kaas oo kulamo badan oo Premier League la ciyaari doono 7 kulan. Hal kulan waan ka soo hadalnay Arsenal iyo Brighton, hase ahaatee muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa Manchester City iyo West Ham. Manchester City waa ay soo badisay labadii kulan Premier League ugu horeysay, taas oo 6 goolna soo dhalisay, 1 goolna laga soo dhaliyay, 6 dhibcoodna wadata hogaankana Premier League kaalinta koowaad ka hayda. sidoo kale West Ham waxa ay soo badisay hal game na waa laga soo badiyay oo 3 dhibcood ay wadataa. kulankan waa kulan kale oo xiisiisa wata saadaalintana. adiga ayaan ku weydiinayaa maxaad ku saadaalinaysaa kulankan? Manchester City West Ham ma qaban kartaa? Manchester City ma awood yara oo 4 sano oo xiriir ay Premier League qaadayso, hadda waxay u socotaa sanadii shanaad oo xiriir ah inay Premier League ku guuleysato haddii aan koox kale ay soo bixin oo ka qaadin. sidoo kale waxaan eegi doonaa Everton iyo Bournemouth, kuwaas oo ciyaari doona guriga Evertonna ku ciyaari doona. Everton labadii kulan ee Premier League ugu horeysay waa laga soo badiyay, taas oo looga badiyay kulankii ugu horeeyay 3 gool, kulankii kalena 4 gool, taas oo farqi ahaan u dhigan 7 gool in lagu leeyahay. wax dhibcaana wali aysan lahayn, kaalinta ugu hooseysa ee 20aadna ay joogto. halka Bournemouth labadii kulan ee Premier League ugu horeysay ay daro soo gashay. hase ahaatee kulankan iyo kulanka Manchester City ba saadaalinta adiga ayaan ku deenayaa. adiga ahaan ma isleedahay Everton maanta waxay heli doontaa dhibcihii ugu horeeyay ee Premier League haba yaraato hal ha ahaatee? isku day saadaalinta muuqaalkan like saar, kulamada kalena way ku xigaan.